dadkii idinkaa qarribay dad yahow kala wada qoqoban intuu degay qaarba meel oo ay qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofkiiba qof dhaliilaya dadkii idinkaa qarribay cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada huwan tihiin qabiil weeye sidaad Soomaaliya qaran ku noqon miyaydaan quburo iyo wax garad qabin iyo khiyaar miyaydaan qaab dadnimo qadarinayn walaalayaal miyaydaan wax isqabto isqiimeeyaba lahayn maxaa culimadii qabsaday quraankii miyuu ka lumay miyuu qasif nagu dhaco qasaaraha lagu farxaa qaniicaad nabadgeliyo miyaa qayrkiiba la nacay miyaa qafladuun ku jiray qiyaamaha ilaa la tago Soomaali qaloocanay ogow quwadii Allah quruma rogtay baa jirtay qisay reebtaa qisaba qubane wuu soo taxnaa taariikhduna way qortaa qaladku qulub buu dhalaa qulubku qarax buu dhalaa dalkiisii oo qariban qof aan wax ka qaban karayn dadkiisiina qabiil u qaybsamay baan ahoo qalbigu wuu yoololayaa intii quman oo dhan iyo qofkii ila aragtii iyana way ila qabaan qabkiyo kibirkiis dardaray isqoonsaday ee isqabsaday qatarta ummadda ay gasheen intuu qabarlaayay iyo qaarkii uu finiin ku dilay qudhaba wixii aan ku weyn mid kasta qodob caraaray iyo dadkii qulquloo badnaa qaxootiga wada noqdiyo qiimihii dalka iyo dadkiyo qaranka Soomaaliyeed qaabkaynu heli karnaa hal qodob baa jira ogow dastuur weeye iska qoran dadkana lagu kala qanciyo qaladka lagu kala saxo sinaan wax ku qaybiyo kitaab weeye quraan qabsada Soomaaliyeed quraafaad lama rabe dad yahow qubay oo ka tagay wixii qaadir u xalilay qaybihii uu naga xarimay intay qaateen kulliba qaladka dambiga ay galeen iyagoo aan ka qoomamayn ibliisku sii qurxiyay waliba iyagu isla quman qisaasaha aakhiriyo qabriga la isgeynayo u dhoobaxda naga xigtiyo qahaar inuu eebba yahay qiraba maysaan miyaa qalbigii miyuu idin qalalay qiyaamo war baa jiree cadaabaha qiiqayo qoryaha dadka looga dhigay shirkiinan qafiifka oo qoraxda aan xamili karayn quuya taaguma hayee qatarta aad dhex taagantihiin ka soo baxa qoom yahow quraanka u soo noqdo qafaar yaa tooba dhaha Soomaali qaloocanay qaaf rabak